hormaro taariikhdii oo kooban. Halgamaa Sheekh Cabdi Abiikar Gaafle Allah u naxariistay waxa uu ku dhashay tuulada Armadoobe ee gobolka Shabeellaha Hoose sanadkii 1852 waxa uuna geeriyooday 1922. Noloshiisa waxa uu ku dhammaystay in uu dadka diinta baro isaga oo ku wareegayay dhammaan tuulooyinka deegaanka iyo in uu isticmaalka la dagaalo. Waxaa wax soo baray culummo caan ahayd oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cuman Sheekh Xasan iyo Sheekh Maxamuud Cabdalle Baarmawaaye. Sheekh Cabdi Abiikar Gaafle sanadkii 1884 sano kadib markii Afrika la qaybsaday ayuu bilaabay in uu ku soo wareego Shabeellada Hoose oo dhan dadkana uu gaarsiiyo in dalka isticmaar soo galay. Sanadkii 1892 waxa uu ku guulaystay in uu dadka isku keeno si ay isaga celiyaan isticmaalka waxa uuna ka qayb galay shirkii Cigale ee looga tashanayay mustaqbalka deegaanka. Sanadkii 1905 waxa uu weeraray gumaystihii soo degay Cigale. Dhaawac culus ayaan ka soo gaaray Sheekh Cabdi Abiikar Gaafle 2 sano kadib. Sanadkii 1907 isticmaalkii Talyaaniga oo aargudanaya ayaa gubay tuulooyinka Ceel Baqal, Mayaalow iyo Jasiira waxa ayna xasuuqeen xoolo nool oo u badnaa lo iyo geel.